gubadley sideetan iyo toddobadii ayaa habarritoo degan ayaa inaan soo aadaa sac caana laga liso meeshaan godka ay degan meeshaan oo bacaadan ku lugay jiray waana xasuustaa gubadley si fiican aan u aqaanaa kow midda labaadna gubadley waxyaabaha aan ku dagaalanay waxaa ka mid ah in gubadley aan u soo rarnay suuqii xoolaha ee dayax oo juhdi dheer aan u galnay inaan soo dejinno xoolaha oo maanta suuqa xoolaha dayaxa ugu weyn ee magaalada muqdisho uu ku yaallo runtii horta ugu horreyn waxaan u mahad celinayaa guddoomiyaha degmada iyo sidoo kale agaasimo dalxa oo mashruucan runtii raaditaankiisa qayb ka ahaa iyo saddexdii oday oo guddoomiyuhu magacooda uu sheegay inay dhulkan ku deeqeen runtii waa arrin sadaqan u ah bulshadooduna ay nacaf ay ka helayso oo arrin fiican oo dadnimo ah maanta marka waxaan leeyahay reer gubadley ka horna hal arrin waa jirtaa reer gubadley lagu ammaano waa xagga ammaanka oo gabadha iyo odaga runtii aniga gubadley markas waa imaadaan laakiin layma arko waxay haystaan nin hooso iska tacbaana meelahan hooso marka taana waxa weeye meelaha kale ciidanan qaata laakiin gubadley wallahi ciidan uma soo qaata marka reer gubadley taa waa ku mahadsantiin maanta maadaama laydin dhisay oo xariga laga jarayo degmada intaas waa kaftan degmada waxaan rajaynayaa maantay taariikhdu ay tahay 2023 bisha 12aad maalintii 10aad oo ah axad inaad ku soo biirteen waaxda suuqyada dawladda hoose xamar waxaan rajaynaynaa marka in dhammaan shuruucihii hadday noqon lahayd canshuuraha hadday noqon lahayd nadaafad hadday noqon lahayd maxaan ku rahdaa intaa markii laydin ku bago waxaan rajaynaynaa in tilaabta labaadna ay imaan doonto waana rajaynayaa dad ka soo bixi ka irartiin aad iyo aad aan idinka mahad celinayaa sida sharafta leh ee kalsoonida leh aad maanta u soo timaadeen barxaddan oday gabar wiil aadaa u mahadsantiin weli waxaa la isku daa in gabdha leedka guursado inta la soo dego aad iyo aadaa u mahadsantiin inay mashaariicdii ka socotay degmada oo ugu weynaay suuqa deegaanka ay maantay xiriga ka jaraan wixii maanta ka dambeeyana bulshada deegaanka gubadley ay ku ganacsato maadaama mashaariicdaas ay fuliyeen maamulka gobolka banaadir oo ugu horeeya guddoomiyaha gobolka waxaan si gaara ugu mahad celiyaynaa agaasimaha qorshaynta oo si hufan noola shaqeeyey waxaan leenahay agaasimo waa mahadsan tahay shaqo aad u wanaagsan hawsheedan ay muuqatad gobolka banaadir ka haysaa waana kaaga mahad celiyaynaa waa mashruuc aad muhiim ugu ah deegaankuna ay wada sugaayeen in badanna aan ku wada haminaynay deegaanka oo suuq weyn oo bulshada gubadley ka dhaxeeyo in mar uun anya la dhiso aan xirig jarno waxay ka mid tahay himilooyinkii aan rabnay intaan madaxtana inaan ku guulaysanno ay lambar 1 ka tahay wax badana intaan joogno ku guulaysanay laakiin inta aana madaxda naqan suuqan tiim ka shaqeeyahay waxaan ka mid ahay suuqan sidoo ku dhismi lahay oo dhulkan danta guud lagu heli lahay hadda ka hor suuqan dawladii hore suuq ma lahaynin meeshan weyn oo ay ka tagto dadkooda ilaashadeen maadaama dawladii hore ay burburtay deegaankan dib sidoo ugu burburaba 10 sano ugu dambeysay oo uu soo kabanayay suuqan waxaa diyaariyay oo ka shaqeeyay oo juhdi weyn ku bixiyay dad deegaanka degan oo akhyaara odayaala oo dhulkan sidii lagu heli lahay juhdi ku bixiyay suuqan waxaa laga qaaday dad iyagu anya gatay oo iibsaday inay ku manaaficiidaan u baahan ayaan waxaan dhahnay meeshaan deegaanka ayaa suuq looga dhigayaa meel bulshadu leedahay noqonaysaa waxaan rabnaa inaan wareejisiin suuq bulshadaanu ay leedahana laga dhigo annaad bulshadii ku deeqdiina laydinka rabaa iyagina way naga aqbaleen wayna ku deeqeen dhulka suuqan sidaasuu ku yimiday dadkaas waa dad bulshada wax gooniya ku leh amaal badan gashaday ka maamul ahaanna aan leenahay waa mahadsantihiin haddaan magacyadooda meeshaan ka xuso odaga ugu horreeyo la yidhaha Sheekh Maxamuud Noorad iyo ninka la yidhaha Daahir Cali Xasan oo la yidhaha Daahir Mooto loo yaqaano iyo nin la yidhaha Cabdiraxmaan Jiino oo kumbud loo yaqaano
saddexdaas odaya anoo kaalmeeyey ayay bulshadu suuqan inay hesho ayay ku mahadihaysaa gudoomiye farxad bay noo tahay arrin aad u weyn bay noo tahay inaad maanta suuqan oo bulshadu ay leedahay noo xirig jarto annaad noogu timaado aad iyo aadna waa kugu mahad celiyaynaa adiga iyo wafdigaagaba waxaan idin leenahay soo dhowaada gubadley waxay aad iyo aad ugu jadbaysan tahay horumarrada gobolka banaadir uu sameeyhayo waxaan codsanaynaa in mashaariicda lamida suuqyadoo kaleeto ee gobolka banaadir dadkaanu waa dad dawladnimada u heelan waxaan codsanaynaa in looga faa'iideeyo annaguna dhulkii mashaariicdaas diyaarow naga yaa waa haynaa ka maamul ahaan maadaama aan afkooda ku hadlaayo waa meesha kaliya ee aan weligeedna amni darra ka dhicin nimanka la yidhahdo khawaarijtan ayna ku soo xadgudbin dad kaloo amni darraan ayna ku soo xadgudbin mashaariicda gobolka banaadir iyo dadka looga faa'iido ugu horreeya maadaama ay amnigooda ka faa'iidaysteen in iyaga laga dhigaan codsanaynaa insha allahu ilaah idankiisa maamulka gobolka banaadirna wuu garanayaa wuuna og yahay waxa ay ku sugan tahay gubadley iyo horumarka ay ku tilaabsanaysay sanadada la soo dhaafay haddana insha allah waa rajaynaynaa in mashaariic badan laga dhagax dhigi doono lagana xirig dari doono shacabkuna waa mahadsan yihiin dhammaantood sidai ay ku joogaan maamulka gobolka banaadirna waa mahadsan yahay maanta waa sharaf iyo qiimo iyo milgo weyna ii tahay inaan goobjoog u ahay xarig jarka suuqani casriga ah oo runtii si qurux badan oo wanaagsan loo dhisay oo aan rajaynayo reer gubadley inay ka faa'iidaysan doonaan waxaan rabaa inaan marka hore u mahad celiyo odayaashii guddoomiyaha uu sheegay ee runtii iyagu tadawucay ee bixiyey dhulka laga dhisay suuqan casriga ah mahadi ha ka gaadho ajir iyo xasanaad ilaahay ha ka siiyo waxa la sadaqaysto waxa ugu wanaagsan ay sadaqaysteen goob bulshada ay ku intifaaci doonto ay ku ganacsan doonto dhallinyaro shaqo looga abuuri doono dadku isku arki doonaan meel wanaagsan runtii waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala ilaahay inuu miisaan xasanaatin ka yeelo annagana waa xuseynaa mar walba waana abaal marin doonaa hadduu ilaah yidhahdo insha allahu tacaala odayaashaas waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahad celiyo aan bogaadiyo guddoomiyaha degmadu isagu mar walba dhiiran una taagan abaabulka bulshadan aan u jeedno sida qiimaha badan ay isugu duuban yihiin ay uga shaqaynayaan amnigooda ay uga shaqaynayaan horumarka iyo nabadgelyada intaba waxaan rabaa inaan xuso waxaa la socotaan gobolka banaadir qorshayaashiisa ugu waaweyn waxaa ka mid ah horumarinta iyo ballaarinta suuqyada oo aan maanta goobjoog u nahay xarig jarka suuqaani qayb ka tahay waxaan rajaynaynaa insha allah bulshadu inay ka faa'iidaysan doonto kobac dhaqaale meeshaas uu ka imaan doono dowladda hoosena dakhli uu uga soo xaroon doono waa mas-uuliyad laga rabaa bulshada ku dhaqan reer gubadley in ay nadaafadda iyo amniga suuqani ay ilaaliyaan annagana insha allahu tacaala sidii kale oo aan shuruucdii iyo qaabkii ugu ganacsan lehdeen inaan idinkala shaqayno hadduu ilaah yidhaahdo dowladda hoosena dakhli meeshaas uga soo aruuro si aan horumarka deegaanada iyo degmooyinka gobolka banaadirba aan qayb weyn uga qaadan hadduu ilaah insha allah waxaan rabaa inaan u mahad celiyo GPLG oo ayagu ka soo shaqeeyeen runtii hirgelinta suuqaana lahay dowladda hoose iyagoo iska kaashadeen si gaara waxaan ugu mahad celinaa agaasimo dalxa agaasimaha qorsheynta oo runtii isagoo isku xidhkii iyo ka shaqayntii lahaa guddoomiyaha degmada iyo konsolkiisa runtii aaday u mahadsan yihiin dadka deegaankana aadaan ugu mahad celinaa siday isugu duuban yihiin sida ay danta guud uga shaqaynayaan mar labaad iyo saddexaad waa mahadsantihiin reer gubadley aadaan ugu mahad celinayaa sanadkan guulo badanaad gaarteen oo aad ka soo bilowdeen inaad sportskii gobolka banaadir ku guulaysataan xarunta degmada inaad dhisataan waxbarashadii iyo MCAjadii wixii looga baahnaay halbeegyadii degmo looga baahnaay oo dhan gubadley maanta waa haysataa maantana suuq casri ah oo ay ku ganacsadaan ayaan xarigga uga jarnay marka hambaliyo reer gubadley hore u socda garabkiinaan taaganahay